بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا Khadir wuxuu yidhi miyaanan kugu odhan adigu ma karaysid la jirkayga samir. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا Muuse wuxuu yidhi haddaan ku weydiiyo wax ka dambeeya tani haba yeelin inaan kula socdo waxaad dhab ahaan heshay cudurdaar xagga arrinkayga. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا Way tageen jeer markay ku yimaadeen dad magaalo deggan waxay weydiisteen cunno dadkeeda wayse diideen inay marti sooraan markaasay waxay heleen gudaheeda gidaar dumi raba markaasuu Khadir toosiyey. Muuse wuxuu yidhi haddaad doonto waxaad ku qaadan lahayd ujro. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا Khadir wuxuu yidhi kan waa kala tagga dhexdeenna aniga iyo adiga ee waxaan kuu sheegi fasiraadda waxaad u samir yeelan kari weyday. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا Madoonida waxaa lahaa dad masaakiin ah oo badda ka xoogsada. Waxaana doonay inaan ceel u yeelo waayo waxaa hortooda ahaa boqor ku qaata dooni walba oo hagaagsan qasab. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا Wiilkana waxay labadiisii waalid ahaayeen mu'miniin waxaana ka baqnay inuu ku dhibo xadgudub iyo abaaldhac. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما Waxaana doonay inuu ugu beddelo rabbigood mid ka khayr roon daahirinimo oo naxariisasho dhow. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا Gidaarkana waxaa lahaa laba wiil oo agoommo ah oo magaalada jooga waxaana hoostiisa yaalay khasnad maal ah ay iyagu leeyihiin wuxuuna ahaa aabbahood qof wanaagsan marka wuxuu rabbigaa doonay inay qaan gaaraan oo la soo baxaan khasnadooda naxariis ka ahaatay xagga rabbigaa kumana aan samayn waxaan falay amarkayga. Waana kaas tafsiirka arrimihii aad u samir yeelan kari weyday. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا Waxay wax kaa weydiin Dulqarnayn. Dheh waxaan idiin akhrin war ku saabsan isaga. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا
waxaan ku awood siinay dhulka waxaana u siinay wax walba sabab cilmi فاتبع سببا wuxuu raacay waddo حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا ilaa markuu gaaray meeshay u dhacdo qorraxdu wuxuu helay iyadoo ku dhacaysa il dhoobo madow ah oo ka helay agteeda qolo waxaannu nidhi dulqarnaynow ama waa inaad cadaabto hadday diidaan inay qiraan shahaadada ama u axsaan fasho oo barto islaamka قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا wuxuu yidhi qofkii dulmi fala oo naga fallaagooba waa aanu cadaabi dili haddana waxaa loo celin xagga rabbigiis wuxuuna ku cadaabi cadaab daran وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا qofkiise xaqa rumeeya oo samafala wuxuu leeyahay abaal gud wanaagsan janno waxaana kula hadli ereyo nugul oo amarkayaga ah ثم اتبع سببا markaasuu raacay waddo kale حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ilaa markuu gaaray meeshay ka soo baxdo qorraxda wuxuu helay iyadoo ay u soo baxaysa qolo aynu siin wax ay isaga asturaan كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا sidaas weeye waxaana ku koobnay ogaansho waxa uu haystay ثم اتبع سببا markaasuu raacay waddo kale حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ilaa markuu gaaray meel laba buurood dhexdooda ah wuxuu sokodooda ka helay qolo dhib ku fahma hadalba قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا waxay yidhaahdeen dulqarnaynow waxay yuug iyo yamaayuug ku falaan fasahaad arlada ma kuu yeelaa qarash waxaase shardi ah inaad yeesho dhexdeenna innaga iyo iyaga xil gidaar ah قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما wuxuu yidhi wuxuu awood i siiyey rabbigay baa igu filan oo khayr roon ee igu caawiya xoog shaqaale waxaan yeeli moosfir weyn dhexdiinna idinka iyo iyaga آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا ii keena goosimo bir ah jeer markuu simay dhinacyada labada buurood dhexdooda wuxuu yidhi buufiya ilaa markuu ka yeelay sida dab wuxuu yidhi ii keena maar la dhalaaliyey aan ku shube فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا mana karin yajuuj iyo majuuj inay ka soo kor baxaan mana karin inay duleeliyaan قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
dulqarnayn wuxuu yidhi waxa kani waa naxariis xagga rabbigay ah markase uu yabooha rabbigay yimaado wuxuu la simi dhulka yabooha rabbigayna waa xaq وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا waxaana u dayn qaarkood maalintaa inay isbuurtaan oo isdhex yaacaan hirar oo kale qaar kale waxaana la afuufi buunka oo soo kulmin iyagoo dhan وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا waxaana u bandhigaynaa jahannama maalintaa gaalada bandhig الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا kuway indhahoodu ka daboolaayeen waanadayada ee aan kari jirin inay maqlaan waanada أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ma waxay kuwa xaqa diida moodaan inay anfacayso inay ka yeeshaan addoommahayga gargaarayaal aniga sokaday waxaan u diyaarinay jahannamo deegaan ahaan gaalada قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا dheh ma idiin sheegaa kuwa ugu khasaaraha badan camallo ahaan الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا waa kuwa camalkooda noloshan adduunka yahay khasaaro aan wax qiimo ah lahayn iyagoo mooda inay sama falaan أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا kuwaasu waa kuwa ku gaalooba aayadaha rabbigood iyo la kulankiisa marka camaladooda waa buraan sidaas awgeed uma yeelno wax miisaan iyo qiimo ah maalinta qiyaamaha ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا sidaas waa in abaalkoodu yahay jahannama gaalnimadooda darteed waxayna ka yeesheen aayadahayga iyo rusushaydii jees-jees إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا kuwa xaqa rumeeyey ee samaha fala waxay leeyihiin beeraha alfirdoos degitaan martiqaad ahaan خالدين فيها لا يبغون عنها حولا iyagoo ku dhex waaraya weligood mana doonaan inay xaggeeda ka wareegaan guuraan قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا dheh hadday baddu ahaan lahayd khad loogu talagalay qoridda kelmadaha rabbigay baddu waa dhammaan lahayd inta aysan dhammaan kelmadaha rabbigay xataa haddaan keenno bad kale oo la mid ah oo taakulo u ahaato قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا nebi maxamedow dheh waxaan anigu uun ahay qof idinkoo kale ah waxaa la ii waxyooday inuu ilaahiinnu yahay ilaah mid keliya ah ee kii rajo ka qaba la kulanka rabbigii
ha falo camalo san oo yuusan la wadaajin cidna cibaadada rabbigii alle. بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي يا عين صاد Kaf ha ya cayn sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا Kani waa xusid naxariista rabbiga u naxariistay addoonkiisii Zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا Markuu u dhawaaqay rabbigii dhawaaq qarsoodi ah uu alle baryay. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Wuxuu yidhi, Rabbiyow, anigu way daciifeen lafahaygii filweyni darteed, madaxayguna wuxuu la wada huray caddaaday cirro, mana ahayn baryadayda aan ku baryo Rabbiyow mid ku qada. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا Waxaana u cabsan xigtada iga dambaysa, marwadayduna waa ma dhalays. Iga sii xaggaaga weli walad. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا dhaxlana reer Yacquub oo ka yeel Rabbiyow midaad ka raali tahay. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Waxaa lagu yidhi, Zakariyow, waxaanu kuugu bishaaraynaynaa wiil magaciisu yahay Yaxyaa. Ma aanu u yeelin cidna horti magacaan. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا Wuxuu yidhi, Rabbiyow, sidee baan u yeelan wiil iyadoo haweentaydu tahay, ma dhalays, aniguna ka gaaray weynida gabow. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Malagii baa yidhi, sidaas bay ahaan. Rabbigaa wuxuu leeyahay, waa ii fududahay. Waayo waxaan ku abuuray kolkii horeba adigoon waxba ahayn. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا Zakariya wuxuu yidhi, Rabbiyow ii yeel calaamo. Wuxuu yidhi, calaamadaadu waa inaadan la hadli karayn dadka 3 habeen oo israacsan adoofayow. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Markaasuu uga soo baxay qoladiisii qolkii salaada oo u tilmaamay inay alle hufaan oo xusaan subax iyo galaba. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا Allah wuxuu yidhi, Yaxyow, ku qaado kitaabka Towraadda go'aan adag. Waxaanuna siinay fahan isagoo yar. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا iyo maxabbad xaggayaga ah iyo daahir ahaansho wuxuuna ahaa mid ka cabsada Ilaahay oo ka dhowrsada xumaha. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا Baari u ah labadiisa waalid mana ahayn macangeg caasi ah madax adag. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا
nabad korkiisa ha ahaato maalintuu dhashay iyo maalintuu dhiman iyo maalinta la soo bixin isagoo nool. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ku xus kitaabka qur-aanka qisadii maryam markay uga fogaatay ehelkeeda meel dhanka bari ah bariga qudus. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. waxayna yeelatay iyadoo cidla uga baxday daah ay iskaga asturto markaas baan u soo dirnay malagayaga jibriil oo isaga soo dhigay qof aadmi ah oo dhan. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. maryam waxay tidhi anigu waxaan kaa magan galay naxariistaha alle ee iga dheerow haddaad tahay mid dhowrsada. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. malagii wuxuu yidhi anigu waxaan ahay uun rasuulka rabbiga si aan kuu ogeysiiyo siismada wiil daahir ah. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. maryam waxay tidhi sidee baan u yeelan wiil anigoo uusan nin i taaban ana ma ahi mid xun oo la tuhmo. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. malagii wuxuu yidhi sidaas weeye rabbigaa wuxuu leeyahay waa ii fududahay waxaana uga yeeli calaamad dadka iyo naxariis xaggayaga ah waana arrin horay loo xukumay gooyey. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. markaasay uurkiisa qaaday waxayna u fogaatay meel dheer durugsan. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. wuxuuna keenay xanuunkii foosha geed timir ah jiriddiisa waxay tidhi alla haddaan dhiman lahaa waxaan ka hor oo aan ahaan lahaa mid la halmaamo oo la waayo araggeeda. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. markaasuu uga dhawaaqay meel ka hoosaysa ha murugoon rabbigaa wuxuu yeelay hoostaada biyo durdur ah. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. una soo rux xaggaaga jiridda geedka timirta wuxuu kuu soo daadin timir cusub oo bisil. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. cun oo cab il qabowsana haddaad aragto cid uun dadka ka mid ah dheh waxaan anigu u nidray alle naxariistaha soon afqabsi marka lama hadlayo maanta cidna aadmi ah. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. waxay ula timid ciise dadkeedii iyadoo xambaarsan waxay yidhaahdeen maryamay waxaad la timid wax weyn. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. haaruun walaashiisay aabbahaa ma ahayn nin xun mana ahayn hooyadaa mid xun la tuhmo. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. waxay u tilmaantay wiilka xaggiisa
waxay yidhaahdeen sidee baan ula hadlaynaa mid dhabta lagu hayo ilmo yaroo dhashay ah. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ciise wuxuu yidhi anigu waxaan ahay addoon ilaahay wuxuu i siin kitaab injiilka oo uu iga yeeli nebi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. wuxuuna iga yeelay mid barakaysan meelaan joogaba oo i dardaarmay inaan oogo salaada oo bixiyo sakada intaan noolahay. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. iyo inaan baari u ahaado hooyaday igamana dhigin macangag khayr daran. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. nabadii ha ahaato korkayga maalintaan dhashay iyo maalintaan dhiman iyo maalinta la isoo bixin anoo nool. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. kaasi waa ciise ina maryam qowlka xaqa ah oo ay ka shakisan yihiin doodii. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. kuma habboona alle inuu yeesho wiil ilmo. subxaanah wuu ka hufan yahay. markuu arrin gooyo wuxuu uun ku yidhaahdaa ahow waanu uu yahay. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ciise wuxuu yidhi xaqiiqna allah waa rabbigay iyo rabbigiinba ee caabuda isagoo keliya kan baa ah jid toosan. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. wayse iskhilaafeen xisbiyadii dhexdooda xagga ciise ee hoog bay leeyihiin kuwa xaqa diida ka soo gaadhi kulan maalin weyn. أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. wax maqli ogaa oo arki ogaa maalinta la keenayo hortayada. daalimiintuse maanta waxay ku sugan yihiin habow cad. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. uga dig maalinta qoomamada marka arrinka la gooyo haddase dhoohnaan baa haysa mana rumeeyaan xaqa. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. waa annaga allah kuwa dhaxli arlada iyo waxaa korkeeda joogaba xaggaygaana laydiin soo celin. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ku xus kitaabka qur-aanka qisadii ibraahim wuxuu ahaa run badne nebi ah. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. xus markuu ku yidhi aabbihiis aabbow maxaad u caabudi waxaan wax maqlayn waxna arkayn waxnana ku tari karin. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. aabbow aniga waxaa ii yimid cilmi waxaan kuu imaan ee i raac waxaan kugu hanuunin jid toosan islaamka. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. aabbow ha caabudin ha adeecin shaydaan xaqiiq
shaydaanku waa mid abad raxmaanka ku caasi ah. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. Aabbow, anigu waxaan ka cabsan inuu kaa taabto cadaab xagga alle raxmaanka, markaas aad u noqoto shaydaanka rafiiq naarta gudaheeda. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. wuxuu aabbihii yidhi, ma waxaad nici ilaahyadayada Ibraahiimow? haddaad ka harin waxa kani waan ku dhagaxyeyn ee iga dheerow in muddo ah. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Ibraahiim wuxuu yidhi, nabad korkaada ha ahaato. waxaan kaaga baryi dembi dhaaf rabbigay. waa mid ii roonaan badane. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. waana idinka fogaan idinka iyo waxa aad caabudaanba alle sokadii. waxaana baryi rabbigay Allah keliya, waxaan rajayn inaanan noqon mid barida rabbigay ku hungooba. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. markuu ka fogaaday iyaga iyo waxay caabudi Allah sokadi, waxaan u hibaynay Isxaaq iyo Yacquub, mid walbaana waxaan ka yeelnay nebi. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. waxaana siinay wax ka mid ah naxariistayada oo u yeelnay ammaan sare. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ku xus kitaabka quraanka Muuse, wuxuu ahaa mid la doortay rasuul nebi ah. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. waxaana uga dhawaaqnay dhinaca buurta ee midigta ah oo soo dhoweynay inagoo la faqayna. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. waxaana ka siinay naxariistayada walaalkii Haaruun oo nebi ah. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ku xus kitaabka quraanka Ismaaciil, wuxuu ahaa mid oofiya ballanka uu galo, wuxuuna ahaa rasuul nebi ah. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. wuxuuna amri jiray ehelkiisa salaada iyo sakada, wuxuuna ahaa mid rabbigiis raali ka yahay. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. kuna xus kitaabka quraanka Idriis, wuxuu ahaa run badane nebi ah. ورفعناه مكانا عليا. waxaana kor ugu qaadnay meel sare. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. kuwaas waa kuwuu alle u nicmeeyey oo nebiyadii ah
oo durriyadii aadam ah iyo kuwaan kula qaadnay doonida nuux iyo durriyadii ibraahim iyo israa'iil yacquub iyo kuwaan hanuuninay oo aan dooranay. marka kuwaasi aayadka raxmaanka loo akhriyo waxay ula dhacaan dhulka sujuud iyo oohin. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. waxaase yimid iyaga ka dambow haraa facyo dambe ee dayacay salaada oo raacay waxay naftu jeclaysato oo xun marka waxay la kulmi hoog. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. kan toobad keena oo rumeeya xaqa oo samafala mooye kuwaasu waxay geli jannada iyagoon waxba laga dulminayn. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. beero nagaya jannooyinka cadni oo uu naxariistaha allah ugu yaboohay addoomahiisa geybka iyagoon arag. yaboohiisu waa kii yimaada oo hirgala. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. kuma maqlaan gudaheeda wax hadal macno darro ah waa uun salaan isnabaadin. waxayna lahaan risiqooda gudaheeda subax iyo galaba kala go'flaan. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. taasu waa jannada aan dhaxal siino addoomahayaga kooda ka dhowrsada xumaha oo noo hoggaansan. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. jibriil wuxuu yidhi oo annagu malaa'igta ah kuma soo degno waxaan ahayn amarka rabbiga. isagaa leh waxa hortayada ah iyo waxa gadaashayada ah iyo waxa labadaa u dhaxeeyaba mana aha rabbiga mid wax halmaama. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. waa rabbiga samooyinka iyo arlada iyo waxa u dhaxeeya ee caabud isagoo keliya oo u samir yeelo cibaadadii. miyaad garan wax la mid ah oo la magac iyo tilmaan ah. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. aadmigu kan gaalka ahi wuxuu yidhaahdaa ma markaan dhinto miyaa la isoo bixin anigoo nool. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ma wuusan aadmigu xusuusnayn inaan abuurnay kal hore isagoon waxba ahayn. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ee rabbigaa baan ku dhaartaye waannu soo kulmin iyaga iyo shaydaamadaba markaas waxaannu keeni hareeraha jahannama iyagoo jilba joogsan. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. markaas waxaan ka soo siibi qolo walba kuwooda ugu dardarnaa xagga raxmaanka allah. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. annagaana dhab u ogsoon kuwa u sii mudan naarta geliddeeda. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
ma jiro mid idinka mid ah oo aan dul marayn naarta korkeeda kani waa guddoon rabbiga waajib ah xukman ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا markaas waxaanu badbaadin kuwii iska jiray xumaha oo uga tegi daalimiinta dhexdeeda iyagoo ku jilba joogsan وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا marka aayadaha yaga loo akhriyo xujooyin cad ahaan waxay kuwa gaalooba ku yidhaahdaan kuwa xaqa rumeeyey midkee baa labadaya qolo degmo wanaagsan oo joog fiican وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا badanaa intaan halaagnay hortood fac oo ka hanti alaab iyo arag wanaagsanaa قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا kii ku jira habow ha u fidiyo raxmaanku waxa uu haysto fidin maalka iyo wakhtiga jeer markay arkaan waxaa loogu goodiyey oo cadaab adduunka ah ama saacadda qiyaame way ogaan kan xun degmo ahaan oo tabar yar ciidan ahaan ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا wuxuu alle u kordhiyaa kuwa hanuunay hanuun camalada wanaagsan ee baaqiga ah baana khayr roon rabbiga agtiis oo leh aayo wanaagsan أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا bal ka warran kan ku gaaloobay aayadaha yaga ee yidhi waxaa hubaa la isiin aakhiro maal iyo carruur أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ma wuxuu daalacday cilmi gaybka mise raxmaanka buu ka helay ballan كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا maye waanu qori wuxuu sheegi oo waan u fidin kordhin cadaabka fidin ونرثه ما يقول وياتينا فردا waxaana ka dhaxli wuxuu sheegi oo dhan wuxuuna noo imaan isagoo keli ah واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا waxay yeeshaan allaah sokadi ilaahyo baadil ah si ay u siiyaan ciso كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا maye iyagu ilaahyadaa waaba ay dafiri doonaan cibaadadoodii wayna ka soo horjeesan col ahaan qiyaamaha ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا miyaadan arag inaan ku soo dirno shayaadiinta gaalada iyagoo geliya xumaan gelin joogta ah فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ee ha u samir waayin waxaan uun u tirinaynaa tiro maalmo go'an يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا maalinta aan u soo gelbin kuwa iska jira xumaha xagga raxmaanka alle iyagoo wafdi sharaf leh ah ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا oo aan u soo kaxayn dembiilayaasha jahannama iyagoo la asqoobay haraad
لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ma hantaan shafeeco mid maahee ka yeesha raxmaanka agtiisa ballan وقالوا اتخذ الرحمن ولدا waxay yidhaahdaan raxmaanku allah wuxuu yeeshay wiil ilmo لقد جئتم شيئا إدا waxaad la timaadeen wax daran تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا samooyinka ay ku sigtaan inay la dildillaacaan dhulkuna la jeexmo oo ay la hoobtaan buuruhu burbur أن دعوا للرحمن ولدا inay ku sheegaan raxmaanka inuu leeyahay wiil ilmo وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا kuma habboona raxmaanka inuu yeesho wiil ilmo إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا wax kastoo ku sugan samooyinka iyo arlada wuxuu u imaan alle raxmaanka isagoo addoon ah لقد أحصاهم وعدهم عدا dhab ahaan waa uu koobay oo tiriyey dhammaan tirin dhan وكلهم آتيه يوم القيامة فردا dhammaantood mid walbaa wuxuu alle u iman maalinta qiyaame isagoo keli ah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا kuwa xaqa rumeeyey ee samaha fala raxmaanku allah wuxuu u yeeli maxabbad qalbiyada muuminiinta فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ee nebi maxamedow waxaan uun ugu yeelnay qur-aanka wax u fudud carabkaaga si aad ugu bishaarayso kuwa iska jira xumaha oo aad ugu digto qolo muran iyo been badan ee xaq diid ah وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا badanaa intaan halaagnay hortood ummad ma ka aragtaa qof keliya oo ka mid ah iyaga mase ka maqashaa xaggooda in yar oo shanqar ah بسم الله الرحمن الرحيم طه taaha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى kuuguma aanu soo dejin qur-aanka inaad naftaada ku halaagto murugo inaysan rumayn xaqa darteed إلا تذكرة لمن يخشى waase u waano ciddii ka baqda alle تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا waa soo dejinta allah kan abuuray arlada iyo samooyinka sare الرحمن على العرش استوى raxmaanku allah wuxuu kor ahaaday carshigiisa dushiisha si u qalanta weynidiisa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري isagaa leh waxaa ku sugan samooyinka iyo waxa arlada ah iyo waxa u dhaxeeya iyo waxa ka hooseeya barayska وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى haddaad kor codka ugu qaado hadalka hubaal alle wuu ogsoon yahay sirta iyo waxaa weliba ka sii qarsoonaan badan الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى allah ma jiro ilaah xaq ah aan isaga ahayn wuxuu leeyahay magacyada wanaagga iyo quruxda badan وهل أتاك حديث موسى ma ku soo gaadhay qisadii muuse
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى markuu arkay dab oo ku yidhi reerkiisii jooga halkan waxaan arkaa dab waa intaasoo aan idinka keeno dhimbil aad kulaalsataan ama aan ka helo dabka wax i tilmaama فلما أتاها نودي يا موسى markuu yimid meeshuu ka ifiyey dabka waa loo yeedhay muusow أني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى anigu waxaan ahay rabbigaa ee iska siib kabahaaga waxaad joogtaa togga daahirka ah ee duwa وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى aniga alle ah baa ku doortay muusow ee dhegayso waxaa lagu waxyoon إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري anigu waxaan ahay allah ma jiro ilaah xaq ah aan ahayn aniga ee anigoo keliya i caabud una og salaada xuskayga إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى hubaal saacadda qiyaame waa imaanaysaa waxaana u dhowahay inaan qariyo si naf walba loogu abaalmariyo waxay camal fashay فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى yaanu kaa weecin xaggeeda mid aan rumaysnayn oo raaca hawadiisa markaas waad halaagsami وما تلك بيمينك يا موسى waa maxay taasi ku jirta midigtaada muusow ogaal weydiin قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى wuxuu yidhi waa ushayda waan cuskadaa oo ugu lulaa caleemaha si ay ugu soo daataan arigayga dushiisa waxaana iigu jira dano kale قال ألقها يا موسى allah wuxuu yidhi bal hoos u tuur muusow فألقاها فإذا هي حية تسعى markaasuu tuuray mise waa abeeso ordaysa قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى allah wuxuu yidhi qaado hana cabsan waxaanu ku celin sideedii hore واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ku qabo gacantaada dhinacaaga waxay soo bixi iyadoo cad ifaysa in laan waa calaamad kale لنريك من آياتنا الكبر si aanu kuu tusinno wax ka mid ah aayadahayaga waaweyn اذهب إلى فرعون إنه طغى u tag fircoon waa uu xadgudbaye قال رب اشرح لي صدري muuse wuxuu yidhi rabbiyow ii waasici deji laabtayda ويسر لي أمري ii fududeena arrinkayga واحلل عقدة من لساني ka fur guntintana carabkayga يفقه قولي si ay u fahmaan hadalkayga واجعل لي وزيرا من أهلي ii yeelna wasiir caawiye ka mid ah ehelkayga هارون أخي haaruun walaalkay اشدد به أزري ku adkee xooji tabartayda dhabarkayga وأشركه في أمري igala qaybgeli wadaaji arrinkayga nebinimada
كي نسبحك كثيرا si aan kuu xurmo weyneenno oo hufno in badan ونذكرك كثيرا aan kuu xusnona in badan إنك كنت بنا بصيرا waxaad adigu tahay mid mar walba na arka قال قد أوتيت سؤلك يا موسى allah wuxuu yidhi waa lagu siiyey codsigaaga muusow ولقد مننا عليك مرة أخرى waxaanu kuu nicmeynay wakhti kale oo hore إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى markaan u waxyoonnay hooyadaa waxaan u waxyoonnay أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني waxaan ku nidhi ku rid isaga sanduuq oo ku tuur webiga niil kolkaasna webigu wuxuu ku tuuri xeebta halkaas waxaa qaadan mid cadow ii ah isagana cadow u ah waxaan yeelay dushaada jacayl lagu jeclaado xaggayga ah iyo in lagugu barbaariyo ishayda horteed waa ilaalintayda iyo ogaanshahayga إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى waxaan kuu galnay wanaag mar kale markay u tagtay walaashaa iyadoo leh ma idin tusaa cid idiin korin nuujinaysa markaas baan kuu soo celinnay hooyadaa si ay u raalli noqoto oo aysan u murugoon waxaadna dishay nin waanse kaa badbaadinay walbahaar weyn oo aan ku imtixaanay imtixaan culus waxaad ku nagaatay sanooyin tirsan reer madyan dhexdood waxaadna halkan ku timid qadar alle muusow واصطنعتك لنفسي waxaan kuu doortay naftayda اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري la taga adiga iyo walaalkaa aayadahayga hana ka daalina xuskayga اذهبا إلى فرعون إنه طغى aad xagga fircoon wuu xadgudabaye فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى kula hadlana hadal nugul waa intaasoo uu waansamo ama ka baqo ilaahay قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى waxay yidhaahdeen rabbigayow waxaannu ka cabsan inuu ku degdego inuuna ciqaabo ama nagu xadgudbo قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأري allah wuxuu yidhi ha cabsannina anigaa idinla jira waan maqli oo arkaa فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى u taga fircoon oo dhahaya waxaannu nahay rususha rabbiga ee nagu dar ilmaha Israa'iil hana cadabin waxaan kuu keennay calaamad xagga rabbiga ah nabadna korkiisa ha ahaato kan raaca hunuunka إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى waxaana loo waxyooday in cadaab ku dhici qofkii xaqa beeniya oo ka jeesta
قال فمن ربكما يا موسى fircoon wuxuu yidhi waa kuma rabbigiin muusow قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى muuse wuxuu yidhi rabbigayu waa kan siiyey wax walba qaabka uu leeyahay oo u tilmaamay yoolkeed قال فما بال القرون الأولى fircoon wuxuu yidhi ka waran xaalka facyadii hore قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى muuse wuxuu yidhi cilmigoodu wuxuu la jiraa rabbigay kitaab buu ku yaal looxa maxfuudka rabbigay ma gefo waxnana ma halmaamo الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى alle waa kan idinka dhigay dhulka gogol fidsan oo idinka furay waddooyin dhexdeeda idinkana soo dejiya biyo roob xagga daruuraha markaasaan ku soo saarnaa dhir noocyo kala duwan ah كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى cuna oo daaqsada xoolihiinna hubaal waxaa arrinkani ugu sugan calaamooyin muujin awoodda alle iyo mudnaantiisa keligii cibaadada ciddii leh caqli fayow منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى xaggeedaan arlada idinka abuurnay gudaheeda baan idinku celin xaggeedaana la idinka soo saari mar kale geeri kadib ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى waxaan dhab ahaan tusnay fircoon calaamooyinkayaga dhammaantood waase beeniyey oo diiday قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى fircoon wuxuu yidhi ma waxaad noogu timid inaad nooga saarto dhulkayaga sixirkaaga muusow فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى waxaanu kuula imaan sixir la mid ah ee noo qabo ballan dhexdeenna aan ku kulanno oo aanaan kadib dhacayn innaga iyo adiguba midna meel eg fagaare ah قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى muuse wuxuu yidhi ballankiinnu waa maalinta ciidda hana la soo kulmiyo dadka barqadii فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى markaasuu fircoon tagay isuna keenay tabihiisii markaas yimid قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري muuse wuxuu ku yidhi sixiroolayaashii uu keenay fircoon magaciin bii waaye ha ka been sheegina ilaahay si uusan idinku dabargoyn cadaab waxaana hoogay qofkii ka been sheega alle فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى markaasay ka doodeen arrinkooda dhexdooda oo qarsadeen faqooda قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى waxay yidhaahdeen kuwani waa laba saaxir oo doonaya inay idinkaga saaraan dhulkiinna sixirkooda oo ay biyaan dariiqadiinna fiican dhaqanka iyo caadadiinna
فاجمعوا كيدكم ثم آتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى isu geeya tabtiina oo imaada idinkoo saf ah waxaa liibaani maanta ciddii gacan sarraysa. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى waxay yidhaahdeen muusow ama tuur usha ama aan inagu ahaano kuwa hor tuura. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى wuxuu yidhi bal tuura idinka marka hore mise xargahoodii iyo ulahoodii waxaa loogu ekaysiiyey sixirkoodii dartiis sida inay ordi. فأوجس في نفسه خيفة موسى markaasuu muuse ka dareemay naftiisii cabsi. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى waxaanu nidhi ha cabsan waa adiga kan sarrayne. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى tuur waxaa ku jira gacantaada midig. waxay liqi waxay sameeyeen waxa ay sameeyeen waa uun tab sixirow mana liibaano sixirow meeluu yimaadaba. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى saaxirintii waxay ula dhaceen dhulka sujuud waxay yidhaahdeen waxaan rumaynay rabbiga haaruun iyo muuse. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. fircoon wuxuu yidhi ma waxaad rumayseen ka hor inta aanan idiin idmin. hubaal waa kan idinku weyn ee idin baray sixirka. waxaan u goyn gacmahiinna iyo lugahiinna isdhaaf waxaana idinku daldali jiridaha geedaha timirta waadna ogaan midkaayagii aniga ama rabbiga muuse cadaab daran oo daa'insan. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. waxay yidhaahdeen kaa dooran mayno waxaa noo yimid oo xujooyin cad ah iyo kan allaah eena abuuray. ee go'aami waxaad rabto inaad go'aamiso waxaad oo keliya wax ka go'aamin kartaa wixii la xidhiidha noloshan adduunka. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. waxaan rumaynay rabbigayo si uu noogu dhaafo gefafkayaga iyo waxaad nagu khasabtay ee barashada sixirka ah. allaah baana khayr badan abaalmarin ahaan oo daynsanaan badan cadaab ahaan. إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. qofkii u yimaada rabbigiis isagoo gaal ah abaalkiisu waa jahannamo uusan ku dhimanayn kuna noolaanayn. ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. qofkiisa u yimaada isagoo muumin ah oo samo fashay kuwaasi waxay leeyihiin derajooyinka sare nolosha dambe aakhiro.
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى beero jannooyin ku yaal guryosan oo negaya bay galayaan oo ay hoos qulqulaan webiyo oy ku dhex waari weligood kaasi waa abaalka kan ka daahiriya naftiisa shirkiga iyo macaasida ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى waxaan dhab ahaan u waxyoonay muuse annagoo ku leh guuraysii addoommahayga oo uga yeel waddo badda dhexdeeda qallalan ha ka cabsan haleel hana ka baqin hafitaan فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم markaas waxaa raacay fircoon oo wata askarihiisii waxaana halkaas kaga daboolay xagga badda waxaasi daboolay وأضل فرعون قومه وما هدى wuxuu dhumiyey fircoon qoladiisii mana uu hanuunin يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ilmahii israa'iilow waxaan idinka samata bixinay cadowgiinnii waxaana idinkula gallay ballan dhinaca midig ee buurta siinay oo idiin soo dejinnay manna macaan malab iyo salwa shimbir hilib wanaagsan كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى cuna waxyaalaha wanaagsan ee xalaasha ah oo aan idinku irsaaqnay hana ku xadgudbina oo qooqina dhulka ha dulminana dadka hana iskibrinana yaysan idinku dhicine cadhadaydu kay ku dhacdo cadhadayduna hoog oo ba وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى anigu waan u dembi dhaaf badanahay qofkii toobad keena oo xaqa rumeeya oo samafala markaas ku sugnaada hanuunka oo toosnaada وما أعجلك عن قومك يا موسى allah wuxuu yidhi maxaa kaa soo dedejiyey qoladaadii muusow قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى wuxuu yidhi waa kuwaan ku soo jooga raadkayga waana kuu soo degdegay rabbiyow si aad u raalli ahaato قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري allah wuxuu yidhi waxaannu imtixaanay qoladaadii gadaashaa waxaana lumiyey saamiri فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي markaasuu muuse u noqday tolkiisii isagoo cadhaysan oo walbahaarsan wuxuu yidhi tolkayow ma wuusan rabbigiin idiin samayn ballanqaad wanaagsan ma waxaa idinku dheeraaday muddadii mise waxaad doonteen inay idinka dhacdo cadho xagga rabbigiin oo aad uga baxdeen ballankii aad ila gasheen قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري waxay yidhaahdeen ugama aanu bixin ballankii aan kula gallay khiyaarka iyaga waxaase nala saaray
culaysyo ka mid ah alaab reer fircoon isku qurxin jireen markaas baan ku tuurnay dabka sidaasuuna u tuuray assaamiri فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي wuxuuna uga soo saaray sawir dibi leh cida dibiga waxayna yidhaahdeen kan waa ilaahiina iyo ilaaha muuse wuuse iloobay أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا miyaynan arkayn in aanu u soo celin karayn kelmadna wax jawaab ah oo aanu u haynin dhib iyo dheef midna ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري wuxuuna ku yidhi haaruun kal hore intaanu soo laaban muuse tolkayo waxaad tihiin kuwo uun lagu imtixaanay arrintani rabbigiinna waa alle raxmaanka ee isoo raaca adeecana amarkayga قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى waxay yidhaahdeen ma daynayno caabudidda dibiga intuu nooga soo noqon muuse قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا muuse wuxuu yidhi haaruunow maxaa kuu diiday markaad aragtay inay lumeen ألا تتبعني أفعصيت أمري inaad isoo raacdo oo ka soo tagto ma waxaad caasiday amarkaygii قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي haaruun wuxuu yidhi ina hooyow ha iga soo qaban garkayga ama madaxayga midkoodna anigu waxaan ka baqay inaad tidhaahdo waxaad kala qaybisay ilmihii Israa'iil mana aadan dhowrin ama sugin qowlkayga قال فما خطبك يا سامري muuse wuxuu yidhi muxuu yahay xaalkaagu saamiriyow قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي wuxuu yidhi waxaan arkay wax aysan arag waxaana ka soo qaatay sacab muggi oo carro ah raadkii rasuulka faraskii Jibriil oo aan ku tuuray dabkii lagu riday alaabadii ay isku qurxin jireen reer fircoon si aan uga sameeyo sawir dibi sidaasayna ii qurxisay naftaydu قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا muuse wuxuu yidhi tag oo naga fogow waxaa kuu sugnaaday noloshan inaad tidhaahdo taabasho ma jirto waa lay gooyey si dhan waxaa kaloo leedahay ballan aad dib uga dhici doonin oo ah cadaabka aakhiro eegna ilaah ku sheegaagii aad in door ah dul joogtay ee aad caabudaysay waanu gubi oo aanu ka dhigi dambas aanu badda ku firdhinno oo waxba aanu ka hari doonin إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ilaahiinu waa oo keliya allaah ee aanu jirin ilaah xaq ah oo aan isaga ahayn wuxuuna ku koobay wax walba cilmi
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا sidaasaan maxamedow kuugu soo tebinnaa warar ka mid ah wixii horay u dhacay waxaanuna xaqiiqtaa siinay xaggayaga waano qur-aankan من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا qofkii ka jeesta wuxuu xambaaran maalinta qiyaama culaab culus dembi خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا iyagoo ku dhex waari cadaabka xumaa maalinta qiyaamaha culaabka ay qaadi يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا maalinta buunka la afuufka labaad oo aan isu soo kulmin dembiila yaasha maalintaa iyagoo indho cawlan يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا iyagoo hoos u wada hadlaya oo isku leh ma aydaan joogin waxaan ahayn 10 maalmood adduunka نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما annagaa ka ogsoon waxay leeyihiin marka kooda ugu jid wanaagsani oo dhan ma aydaan joogin adduunka maalin mooye ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا waxay wax kaa weydiin buuraha dheh rabbigay baa ku baabin qarax isagoo ka dhigaya sida budo ciid ah فيذرها قاعا صفصفا wuxuu ka yeeli arladana bansiman لا تري فيها عوجا ولا أمتا aad ku dhex arkayn meel hoosaysa ama saraysa يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا maalintaas waxay iyagu qof walbaa raaci dhawaaqaha isagoon leexleexasho lahayn waxayna ahaan codadka oo dhan kuwa ku shuucsan raxmaanka alle horti mana maqlaysid waxaan ahayn shanqarta socodkooda يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا maalintaas shafeeco wax ma tarto mid maahee uu raxmaanku alle u idmo oo uu ka raali yahay hadalkiisa يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما wuxuu alle og yahay waxa hortooda ah iyo waxa gadaashooda ah mase ku koobi karaan waxa uu og yahay cilmi وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما waxay dhammaan wejiyaduna u khushuuci allaah noolaha daayinka ah irsaaqaha waxa uunka jira oo dhan waxaana khasaaray kii geystay dulmi ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما qofka samafala oo mumin ah ma ka cabsanayo dulmi loo geysto iyo wax loo dhimo midna وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا sidaasaan ugu soo dejinnay quraan af carabi ah oo ugu celcelinay si cad digniiniha bal inay iska jiraan oo ka dhowrsadaan xumaha ama uu ku dhaliyo waantow ama u noqdo wax lagu xusuusto فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه
وقل رب زدني علما. waxaa sarreeya oo ka kor ah dhammaan uumanka allaah boqorka xaqa ah. Maxamedow, ha ku degdegin qur-aanka akhriskiisa ka hor inta aan lagu dhammayn waxyigiisa oo dheh rabbiyow ii kordhi cilmi. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. waxaan dhab ahaan la galnay ballan aadam mar hore wuuse iloobay kamana aanu helin go'aan adag. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. xus markaan ku nidhi malaa'igta u sujuuda salaan ahaan aadam wayna sujuudeen dhammaan ibliis maahee wuu diiday. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. waxaanu nidhi aadamow, kani ibliis waa kuu cadow adiga iyo xaaskaagaba. yuusan idinka saarin jannada si aydaan u dhibtoon. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري. waxaa ku sugnaaday halkan inaadan ku gaajoon kuna aradin. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. oo aad ku haraadayn qorrax kulkeedna kugu dhacayn. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. markaasuu shaydaan si hoose wax ugu sheegay isagoo ku leh aadamow, ma ku tusaa geedka waaridda iyo boqortooye aan dhammaanayn. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. markaasay aadam iyo xawaa wax ka cuneen geedkii saa waxaa u muuqday cawradoodii waxayna bilaabeen inay ku nabnabaan korkooda caleemihii jannada. wuxuuna aadam ku caasiyey rabbigii oo gefay. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. waxaase doortay rabbigiis wuuna ka toobad aqbalay oo hanuuniyey. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. allah wuxuu yidhi ka dega jannadan dhammaantiin iyagoo qaarkiinba cadow u yahay qaar kale. hadduu idinka yimaado xaggayga hanuun, qofkii raaca hanuunkayga ma ku lumayo adduunkan mana ku darxumaanayo aakhirada. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. qofkiisa ka jeesta xuskayga qur-aankan wuxuu mudan nolol adag oo cidhiidhi ah, waxaana la soo kulmin la soo bixin maalinta qiyaamaha isagoo indhala. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. wuxuu odhan, rabbiyow, maxaad ii soo kulmisay ii keentay qiyaamada anoo indhala anoo hadda ka hor wax arki jiray. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. allah wuxuu odhan, sidaasoo kale waxaa kuu yimid calaamooyinkayagii waadse iska ilowday oo ka dan laatay, sidaas darteed maanta waxaa lagaaga tegi oo lagu iloobi naarta. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
sidaasaan u abaalmarinaa ciddii xadgudubta oo aan rumayn aayadaha rabbigii cadaabka aakhiro ayaana sii daran oo joogto daayin ah. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. miyaanay u caddaan intaan ummado halignay iyaga hortood oo ay ku dul socdaan guryahoodii. arrinkani waxaa ugu sugan calaamooyin kuwa leh caqliga fayow. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. haddayna jirin kelmad hore oo ka soo fushay rabbiga in dib loogu dhigo abaalmarintooda maalin la yaqaan iyo ajal magacaabani waxaa ku waajibi lahayd cadaab ku dhacda intay joogaan adduunka. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. usamir waxay leeyihiin oo ku tasbiixso ammaanaha rabbiga ka hor qorax soo baxa iyo ka hor dhiciddeeda oo tuko qaar ka mid ah saacadaha habeenka iyo dacalada maalinta si aad u raali noqoto. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ha u taagin indhahaaga waxaan ugu raaxaynay qaarkood gaalada ee quruxda nolosha adduunka ah si aan ugu imtixaanno risiqa rabbiga jannada gudaheeda baase ka khayr badan waxaa adduunka lagu siiyey oo ka daayinsan. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ku amar salaada ehelkaaga oo u samir yeelo gudashada salaadaha kuma weydiisanayno risiq annagaa ku irsaaqi. cidhibta wanaagsan ee jannada waxaa leh kuwa alle ka cabsada ee iska jira cadaabkiisa. وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى. waxay gaaladu yidhaahdaan muxuu maxamed noogu keeni waayey calaamo xagga rabbigii ah. miyaanay u imaan maraggii ku sugnaa kutubtii hore ee ku saabsanaa imaanshaha nebiga. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. haddaan ku halaagi lahayn cadaab isaga ka hor waxay odhan lahaayeen rabbigayow maxaad noogu soo diri weyday rasuul si aan u raacno aayadahaaga ka hor dulowga iyo dufowganaga. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. mid walba oo naga mid ah wax buu sugayaay ee suga. waadna ogaan doontaan waa kuwa ku taagan jidka toosan iyo kuwa hanuunsan.